maanta Soomaaliya waxa ay wajahaysaa mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee ugu halista sareeya caalamka. dalkun wuxuu qarka u saaran yahay burburka nidaamkiisa caafimaadka. waxay ahayd in mudnaanta ugu sarreysa ay dawladdu siiso tayeynta adeegyada caafimaad iyo badbaadinta muwaadiniinta u dhammaanaya adeeg xumida. ase yeeshee dhaawacyada 4 sano ee la soo dhaafay la sii gaarsiiyey hay'adihii iyo kaabayaashii daryeelka waxay ka marqaati kacayaan in siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ay keliya ku dhisan tahay maal aruursi, dhul xaraash iyo barakicin shacab. qiyaastii $100 milyan ayay muwaadiniinta Soomaaliyeed sanadkii ku bixiyaan adeeg caafimaad oo ay dalka dibaddiisa u raadsadaan. sidaasi oo ay tahay halkii dawladdu ay maalgelin lahayd mashaariic muwaadiniinta ka caawiya inay dalkooda isku daaweeyaan, waxay xasan sheekh iyo kooxdiisu xaraasheen dhulkii wasaaradda caafimaadka oo ah hay'adda ugu sarreysa caafimaadka dalka. sidoo kale xasan wuxuu iibsaday dhulkii kuliyadda caafimaadka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ahayd halkii laga soo saari lahaa dhaqaatiirtii halista qaran xal markaasi u heli lahayd. kooxdan waxay xaraasheen dhammaan xarumihii caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee MCH-yada ee ku yaalay magaalada Muqdisho. waxaa la gaday dhulkii bangiga dhiigga, inta badan dhulkii isbitaalka Lansareti iyo qaybo ka mid ah dhulalkii isbitaalada Madiina, Martini iyo Xoogga. sidoo kale waxaa la iibiyey dhulkii xanaanada carruurta, dhulalka naafada, dhulkii bisha cas ee adeegyada gurmadka caafimaadka iyo qaybo kale oo badan. daraasadaha hay'adaha qaramada midoobay iyo bangiga adduunka waxa ay isku raacsan yihiin in kunkii carruur ah ee ku dhasha Soomaaliya in ka badan 100 ka mid ah ay geeriyoodaan inta aysan gaarin da'da 5 sano. sidoo kale qiyaastii 8 ka mid ah 100kii carruur ayaa dhinta ka hor sanadkooda koowaad, halka 4% ay saqiiraan bisha ugu horeysa noloshooda. dhallaanka oo kaliya ma ahan, hay'adda WHO waxay Soomaaliya ku tilmaamaysaa mid ka mid ah meelaha ugu khatarta badan dunida ee haweeneydu ku umusho. qiyaasta dhimashada hooyooyinka ayaa gaartay 621 dhimasho 100,000 ee dhalasho kasta, waana tiro aad uga fog bartilmaameedka caalamiga ah ee ah in umulraaca hooyooyinku uu ka yaraado 70 dhimasho ah. dhanka kale, isbitaaladii loo dhisay in dadka loogu adeego si bilaash waxaa laga dhigay xarumo ganacsi oo shacabka lagu dhaco. tusaale ahaan, dad badan waxay xasuustaan dhacdadii bishii November ee sanadkii hore ka dhacday isbitaalka Banaadir, markaas oo hooyo aan haysan qarash dhalmo loo diiday adeeg caafimaad oo degdeg ah, taasoo sababtay inay ku hor umusho isbitaalka hooyada iyo dhallaanka. urka banaanka ka qaba banaanka oo yaala dhahoyaane naxariis mal warno kaale ilaahay ka cabsadayna ka waca. falcelintii bulsho ee ka dhalatay dhacdadaasi, dawladdu waxa ay kaga jawaabtay in xilka qaadis lagu sameeyo agaasimihii isbitaalka ee xilligaas Fartuun Shariif. hase yeeshee in eedu aysan agaasimaha oo kaliya ku ekeen ee shuraka lagu ahaa, waxaa caddayn u ah in Fartuun la dilacsiiyey oo laga dhigay agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka. sidaa awgeed, dhacdadaasi waxay ahayd dembi ay dawladdu ka gashay hooyadaas maskiinta ah, maadaama qofkii eedda dusha laga saaray dib loo darajeeyey. keliya intaas kuma eka, maadaama caafimaadku yahay baahi bini'aadan oo joogto ah, xasan sheekh wuxuu u arkaa il dhaqaale, halkii uu u arki lahaa adeeg aasaasiya oo ay dawladdu waajib ku tahay inay muwaadiniinteeda siiso. waana sababta goob walba oo caafimaad uu qof madaxweynaha qoyskiisa ka tirsan ama isaga wakiilka ah uu ugu lug leeyahay. tusaale ahaan, agaasimaha guud ee isbitaalka Banaadir waxaa hadda ku magacaaban Dr. Muna Xuseen, hase yeeshee mid ka mid ah carruurta madaxweynaha ayaa ah maamulka qarsoon ee isbitaalka Banaadir. hay'adda tayadhowrka oo ay ugu sarreyso gabar ka tirsan qoyska madaxweynaha weli waa il kale oo dhaqaale oo qoysku ku tashto. waxaa dhaqaale xoogan laga sameeyaa daawooyinka daraagiska ah iyo kuwa aan isticmaalka ku habboonayn ee ganacsatada gaarka ah loo fududeeyo soo dejintooda. dhanka kale, xubno ka tirsan isla qoyska madaxweynaha iyo hoggaanka booliska ayaa isbaaro u taalla isbitaal kaste, waxaana lacag laga sameeyaa waraaqda dhimashada ee loo yaqaano rifeetada iyo waraaqda dhaawac muujinta. dawladda Soomaaliya waxay maamushaa mashaariic caafimaad oo waaweyn sida Damal Caafimaad, Marwa Caafimaad, Universal Health Coverage iyo kuwa kale oo banka adduunka iyo deeq-bixiyaashu ay ku bixiyaan malaayiin dollar. hase yeeshee nasiib xumo, maanta ma jirto hal xarun caafimaad oo hooyo Soomaaliyeed ay ka heli karto baaritaan qarashkiisa mashaariicdaas laga bixiyey. dhammaan malaayiintaas dollar waxay ku dhacaan jeebabka dad gaar ah marka laga yimaado qarashka safarada iyo kulamada lagu bixiyo. su'aashu waxay tahay, haddii dawladdu aysan ilaalin karin caafimaadka dadkeeda, hantida ummadda iyo nolosha hooyooyinka iyo carruurta,
maxay tahay ujeeddada ugu weyn ee ay dawladdu u jirto jawaabta su'aashaas waxaa maanta bixinaya goobaha caafimaad ee la xiray xarumaha la iibiyey qoysaska danyarta ah ee albaabada laga celiyey iyo xabaalaha ay buuxiyeen nafaf laga yaabo in la badbaadin lahaa haddii la caawin lahaa